dowladda Jamhuuriyadda Shacabka Ummadda Soomaaliyeed inay noo fududeyso sidaan u heli lahayn baasaboor Soomaali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay dhammaan asxaabtayda qaaliga ee ku xiran channelkeena Maxamed Wardi Official. soo dhawaada dhammaantiin. horta waynu ognahay dhalinyarada Liibiya ku sugan ee Liibiya imika jooga in ay runtii marxalado kala duwan ay la kulmeen dhibaatooyin iyo waxyaalo kale oo la mid ah. markaa waxay nagu waajib ah inaynu caawino, waynu u kacno intii karaankeena ah. haddaba dhalinyarada Liibiya ku sugan ayaa fariin dheer u soo diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaanay ka codsanayaan inuu u fududeeyo oo runtii uu ka caawiyo si ay u heli lahaayeen baasaboor Soomaali ah. haddii ay heli lahaayeen baasaboor Soomaali ah, inay waxyaabo badan ay u fududaan lahaayeen. haddaba dhalinyarada waa muhiim in la caawiyo oo loo kaco. qof walbana oo islaam ah meel walba uu joogo, dhalinyarada waa inuu caawiyo oo codsigooda ay soo dirsadeen uu meel dheer uu gaarsiiyo. haddaba muuqaalka waxaan kaa codsanayaa walaal qaali inaad sii sheeri garayso, aad walaalahaaga muslimiinta ah aad gaarsiiso, dhammaan asxaabtaada oo dhanna gaarsii walaal, oo muuqaalka sii sheeri garay walaal inta awooddaada ah. haddaba wiilkan waxaa lagu magacaabaa Khadar, waxa uu ka mid yahay dhalinyarada joogta Liibiya isla hadda. bal waa kan ila dhageysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Khadar, waxaan joognaa Tripoli Liibiya ama Daraabilis oo taqaanaan. kolay magaca markaad maqashaan waa iska fahmaysaan. fariinteeda waxay ku socotaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Shacabka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale waxaan fariinteeda u dirayaa dhammaan mas'uuliyiinta iyo saraakiisha dowladda ka tirsan iyo waliba qaybta immigrationka. muhiimadan fariintan u soo dirayaan waxa weeye runtii dadka Soomaaliyeed jooga wadankan runtii aad bay ugu dhibaataysan yihiin. codkan muhiimadan soo duubayaan ma aha in magaranaysa dowladda aan maalgelin ka codsanayno. muhiimadeedu waxa weeye insha Allah inaan dowladda ka codsanayno inay naga caawiso qaabkii aan u heli lahayn ama sidii ay noogu fududaan lahayd baasaboor Soomaali inaan helno. haddii aan heli lahayn baasaboor Soomaali waxaa noo fududaan lahaa wax walba, waxyaabo badan baa noo fududaan lahaa. waxaana ka mid ah matalan oo kale inaan ciqaamada wadankan ku dhufsano, xoogaa xorriyad inaan helno, inaan wadamada kale u bixi karno, Tunis inaan u bixi karno, Malta, Khubrus, Turkiga iyo wadamo badan sida Algeria ama Morocco. laakiin maanan helin taas. waxaan ku jirnaa waxa weeye deer ay leedahay Liibiya. xaaladda badu yara adkaatay, de noqoshana ma jirto, wadankii maaha meel lagu soo laaban karo. maxay tahay UNHCR-tuna maaha mid shaqo caadiya ka qabata halkan oo u qabata Soomaalida. si awgeed waxaan jeclaanay inaan helno baasaboor si aan anagu nolosheeda u dabarno oo mustaqbalka aan hore u doonaynay aan imkana u sii raadsano, hawsheedana halka ka sii wadno. maxay tahay inaan ku mashquulin waqti adag iyo waayaha. dowladda Soomaaliya maaha waxaan weydiisanaynaa maalgelin ama lacag. waxaan weydiisanaynaa si aan u heli lahayn baasaboor Soomaali ama ay noogu fududayn lahayd baasaboor Soomaali. runtii hadalkaygani maaha hadal ciyaar waxa weeye waxaanu nahay dhalinyarada aqoon-yahanka u ah dadka Soomaalida halkan jooga. sida awgeed waxaan ka codsanaynaa dowladda Jamhuuriyadda Shacabka Ummadda Soomaaliyeed inay noo fududeyso sidaan u heli lahayn baasaboor Soomaali. haddii ay lacag noqoto matalan oo kale mar baan sidii anigu soo samayso oo lacagta bixi, laakiin way igu adkaatay qaybta immigrationka ma garanaysaa rijig isiiyay oo iga kansalay sababo ma garanaysaa xeerka baasaboor samaysiga oo kale sida in laga rabo faro oo kale wax saasa. marka dad baaban awoodinba inay lacagta bixiyaan, laakiin dowladda Soomaaliya way ku saacidi kartaa dhalinyaradan iyo dadka halkan jooga ee hablo iyo wiilalba leh inay siiso baasaboor Soomaali. si awgeed dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa arrinkaas inay il gaar ku hayso insha Allah.
وسلامية دمان وحسلامية مدة الشعب الصوماليين مركزتو أي جوغان وحاد لeenahay waxaatiin dadkaygii waan idin jecelna waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad si wanaagsan u daawatay dhalinyarada Liibiya ku sugan runtii dhibaatooyin kala duwan ayay soo mareen iyo marxalado kala duwan waa waajibina saaran inaynu caawino aynu u kacno waxaan ka codsanayaa haddii aad muuqaalkan daawanayso inaad muuqaalkan sii share garayso oo dhammaan asxaabtaada aad gaarsiiso waa waajib ku saaran dhalinyaradaas codsiga soo dirsadeen waa in runtii wax laga qabto waad muuqaalkana aad gaarsiisaan meel walba si ay dawladdu wax uga qabato asxaabteeda qaaliga muuqaalka like saara sidoo dad badan u gaaro anagana dhiirigelin ugu noqoto asxaabtiinana insha Allah gaarsiiya haddii Ilaahay awood la ka dhigo waanigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inoo muuqaalka xiga insha Allah